بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يو نبر وحنا أنفعيا نقولنا أنفع واحد نبرتي علم جينا نوزيادي ومركل أي برنامج كي هذا كعبة قبتي سي سجالات تضبط كان أيان وحن ديرة كسارنا ما أنت أيان برنامج كان وحن ديرة كسارنا سيدي أيات كنا قنكرتا سياسي ناجحة قف والبا أما dadka qaar waxay jecel yihiin inay siyaasi ay noqdaan horta siyaasi inaad noqoto waa wax wanaagsan hase ahaatee horta waa maxay siyaasaddu taasi ayaa u baahan marka ugu horeysa in la fahmo siyaasaddu waa hanaan mas'uulka ah dawladda waxayna ihtimaam iyo daryeel ay siisaa umuuraha ummadda gudaha iyo dibadda wax walba hanaan ay leeyihiin hanaan kasta ay mas'uul ayuu leeyahay siyaasaddu waa hanaan sidaan sheegnay waxaana mas'uul ka ah dawladda waxayna ihtimaam iyo daryeel siisaa umuuraha dadka gudaha iyo dibadda dadka qaarna waxay u yaqaanaan hanaan fulin iyo awood oo markaasi lagu baahinayo bulshada siyaasaddu waxa lagu tiriyaa hanaanada sameynta go'aamada waana qaab maamul farsamo ah waana amaanad aad u weyn iyo mas'uuliyad aad u baaxad weyn siyaasiga waa qofka ama shakhsiga ay ku kalsoonaadaan bulshada isla mar ahaantaana horumariya waxyaabaha ay u baahan yihiin horumarin karana xaaladaha markaasi dadka ay ku sugan yihiin waa kaasi siyaasiga lagu sheegayo haddaba haddii aad doonaysid marka siyaasi naajaxa inaad noqotid marka ugu horeysa waa inaad mar walba aad ka fikirtaa mas'uuliyadda ah inaad horumariso dadka xaaladaha ay ku sugan yihiin oo meesha hadda ay taagan yihiin horay uga sii ambaqaado meel wanaagsanna aad gaarsiisid meesha hadda aad taagan tahay markaad ka bilaabaysid waa inaad ku xisaabtami kartaa meesha aad gaarsiin kartid ujeedkaaga iyo taargetkaaga muxuu yahay maxaa hadaf ku ah oo aad doonaysaa inaad tiigsatid isla mar ahaantaana aad doonaysid inaad ku horumarisid bulshada adiga aad rabtid inaad noqoto siyaasi si aad siyaasi aad u noqotid marka sidoo kale waxa laga rabaa inaad heshid kalsoonida dadka haddii aadan lahayn kalsooni ay dadku ay kugu qabaan ama aadan helin kalsoonida dadkaaga siyaasi ma noqon kartid marka ugu horeysa waa inaad isku daydaa inaad heshid kalsoonida dadka aad doonaysid inaad siyaasi aad u noqotid annaga haatan waxaan noolnahay casri ka buuxa isbedelo isdaba joog ah oo dramatic ah maalin walba ama goor walba waxaa soo cusboonaada dhiilo ama dhacdooyin kala duwan marka saas darteed marka qofka siyaasiga noqonaya waliba qofka noqonaya siyaasiga naajaxa ah waa inuu la jaan qaadi karaa marka isbedelada casrigan socda oo cusub markaasi la jaan qaadi karana wacyiga hadda lagu sugan yahay haddii ay dhiilo ay timaado waa inaad taqaanaa qaabkaad ula tacaamul lahayd dhiiladaasi haddii ay dhacdooyin kale ay soo baxaan dhacdooyinkaasi waxaa laga rabaa qaabkii aad ku maareyn lahayd inaad heshid howlahaasina cidda ku tallaabsanaysana waa qofka doonaya inuu siyaasi u noqdo haddaba siyaasadda waa wax u baahan in la barto waana hanaan maamul farsamo sidaan horey aan u soo sheegnay qof walba siyaasi ma noqon karo siyaasi laguma noqon karo laba shay aad isku soo aadisay siyaasi laguma noqon karo idaacadaha ayaan ka hadlaa siyaasi laguma noqdo dad baan leynayaa siyaasi laguma noqdo waxbaan dibindaabiyadeynayaa siyaasi laguma noqdo waxbaan musuq maasuqayaa siyaasaddu waa qaab maamul farsamo isla mar ahaantaana lagu hagayo laguna maamulayo bulshada markaasi adiga aad mas'uulka aad ka tahay ama aad doonaysid mas'uuliyadoodaba inaad qaadid marka saas darteed maalkan waxaan idinkugu soo gudbin doonaa tallaabooyin aad raacaysid si aad markaasi u noqoto siyaasi
naajix ah. marka ugu horeysa horta waa inaad la socotaa dhacdooyinka maalinlaha ah ee siyaasadda ah ee saaxada markaasi ka jira. maalin walba wax baa soo kordha, kuna soo kordha dhanka siyaasadda. haddii aadan update aadan ka noqonin marka dhacdooyinkaasi maalinlaha ah ee dhacaya ee dhanka siyaasadda ah, siyaasi naajixa markaasi ma noqon karaysid. marka ugu horeysa maalin walba, saacad walba waa inaad la socotaa dhacdooyinka isdaba joogga ah ee dhacaya, ama waxyaabaha isdaba joogga ah ama isbedelada isdaba joogga ah oo maalin walba dhacaya, isla mar ahaantaana ku soo ziyaadaya saaxada siyaasadda. si aad midaas markaa u daba gasho, markaa waqti kooban ayay kaaga baahan tahay, waqti badan ma kaa qaadanayso. waxaa kugu filan 15 daqiiqo ayaa kugu filan inaad dabagal aad ku samaysid ama baaritaan aad ku samaysid waxyaabaha maalintaasi dhacaya, adigoo markaasi haddii ay meelaha lagu soo qoro, baraha lagu soo qoro sida website-yada, baraha bulshada iyo wixii markaasi la mid ah. saas darteed marka 15 daqiiqo ma kugu qaadanayso inaad ogaatid waxyaabaha update-ka ama waxyaabaha cusub ee ku soo kordhay saaxada siyaasadda. haddii markaasi aadan la soconin waxa soconaya ama waxa saaxada taagan, ma noqon kartid markaasi siyaasi naajix ah. maalin walba soo bilata ama maalin walba bilaabata, waxaa laga rabaa inaad isha aad ku haysid waxa soo kordhay. hal il kaliya ku tiirsanaanin. marka macluumaadka aad raadinaysid ama akhbaaraadka aad raadinaysid waa inaad ka heshaa ilo kala duwan, different sources waa inaad ka heshaa. marka hal meel kaliya haddii waxa aad ka qaadatid, waxaa laga yaabaa ideology qof aaminsan oo meesha uu soo dhigay, adigana in isaga aad la qaadatid. maskaxdaada waa inay furnaataa, open waa inay ahaataa, oo markaasi aqbali kartaa waxyaabaha qaarkood, diidina kartaana waxyaabaha qaarkood, adigoo isticmaalaya markaasi caqligaaga saliimka ah. marka maalin walba bilataa, maalin walba cusub, intaadan wax kala qabanin waa inaad la socotaa markaa jihada ay siyaasadda ay u socoto, waxyaabaha ku cusub saaxada siyaasadda ee soo kordhay. markaasi waa noqon kartaa siyaasi naajix ah. macluumaadka aad raadinaysid isla markaana aad hesho waa inuu ahaada macluumaad sax ah. haddii macluumaadkaasi uu yahay macluumaad khaldan, isla mar ahaantaana aad la falgashid macluumaadkaasi khaldan, hadhow meesha waxaa imaanaya fashal ayaa imaanaya. waxaana imaan doonta markaasi in waxyaabaha qaarkood aad ku hungowdid ama aadan horay ugu sii dhaqaaqin. midaa ayaa imaanaysa marka ugu dambaysa. qodobka xiga ayaa wuxuu noqonayaa, si aad markaasi aad u noqoto siyaasi naajix ah, inaad lahaatid aqoon taariikheed, adigoo ka bilaabaya akhrinta macluumaadyada muhiimka ah iyo buugaagta taariikhda qadiimka ah. inaad macluumaad aad heshid, weliba macluumaadkii qadiimka ahaa, dhacdooyinkii hore u dhacay, waxyaabihii siyaasadda ku soo kordhay waagii hore, waxyaabahaasi oo dhan inaad waxaa laga rabaa aad ka haysatid macluumaad markaasi faa'iido ku noqon kara, isla maraantaana aad ku fahmi kartid saaxada siyaasadeed. yacni macluumaadka siyaasadda ay kaaga baahan tahay, waayo waxaad u ololeynaysaa ama xoogga aad saaraysaa ama aad orod ugu jirtaa sidii aad ku noqon lahayd siyaasi naajix ah. waxaad u baahan tahay inaad ogaatid dagaaladii ugu muhiimsanaa ee adduunka soo maray, isku dhacyadii ugu waaweynaa soo maray. taasina waxaa ka dhex ogaanaysaa marka waxyaabaha keenay iska hor imaadyadaasi, dhacdooyinkii dhacay, waxyaabihii lala kulmay, cidda guulaysatay, qaabkii farsamo ee markaasi loo hagayay, waxyaabahaasi oo dhan. meeshaas waxaad ka helaysaa macluumaad dhammaystiran. marka inaad raadisid marka macluumaadka qadiimka ahaa waxay u gogol xaaraysaa macluumaadka aad mustaqbalka aad u baahan tahay ee dhanka siyaasadda, waayo waxaad orod ugu jirtaa inaad noqotid siyaasi naajix ah. sidoo kale inaad dabagal ku samaysaa, baaritaan aad ku samaysaa kacdoonadii hore u soo dhacay, waxyaabaha sababay, waxyaabaha keenay, taariikhdooda, hogaamiyaashooda, qaab maamulkooda iyo waxyaabahaasi oo dhan. sababtoo ah waxa shalay toole wuxuu kugu xirayaa waxa biri markaasi adiga aad doonaysid. sababta oo ah siyaasaddu waa qaab maamul farsamo oo u baahan maskax furan oo cabqari ah. si taas markaas aad u heshid marka sidaas aad u gaartid marka waxaad u baahan tahay inaad heshid macluumaad aad u badan dhinaca siyaasadda ah, waqtigii tegay iyo waqtiga haatan la joogaba.
waa inaad aqoon iyo cilmi aad u leedahay isticmaalka kelmadaha siyaasadda loo isticmaalo, gaar ahaan weliba kuwa maalin kasta la isticmaalo. inaad aqoon iyo cilmi aad u lahaatid isticmaalka kelmadaha siyaasadda ee maalin walba la isticmaalayo, waayo kelmadahaas isticmaalkooda marba haddii siyaasi aad tahay maalin walba inaad isticmaashid ayaad u baahan tahay, kuna celcelisid inta badan, gaar ahaan waqtiga munaasabka ku ah in kelmadahaasi lagu dhawaaqo. kelimadahaasna inta badan waxaad ka helaysaa marka aad akhrinaysid akhbaaraadka ama aad dhegaysanaysid ama aad daawanaysidba. sidoo kale waa inaad aqoon u leedahay hogaamiyayaasha siyaasadeed ee dalkaaga, lagaagana baahan yahay markii loo baahdo inaad la xiriirtid si aad u dhegaysatid aaraadooda siyaasadeed. sidoo kale waa inaad aqoon u leedahay hogaamiyayaasha siyaasadeed ee wadankaaga iyo dadka leh aaraada siyaasadeed ee markaasi jooga wadankaaga. waxaa laga yaabaa inaad ka heshid macluumaad badan, waxaana lagaaga baahan yahay inaad la xiriirto marka loo baahdo, sababta oo ah waxaa laga yaabaa inaad ka heshid macluumaad dheeraad ah, ama waxaa laga yaabaa inay kugu biiriyaan macluumaadka adiga aad raadinaysid, ama waxaa laga yaabaa inay ku siiyaan macluumaad dheeraad ah oo aad ugu baahan tahay xanaanka howlahaaga ay u socdaan. gaar ahaan waa markii adiga aad doonaysid inaad noqotid siyaasi naajix ah. yacni arrimahan oo dhan markaasi waxay ku horseynayaan marka, gaar ahaan marka wadankaaga uu doorasho gelayo, ayaa waxay kaa saacidaysaa marka inaad qofka munaasibka ah aad u dooratid booska munaasibka ah. waayo qofka haddaadan ogaanin, qofka haddaadan baran, qofka haddaadan baarin, waxaa laga yaabaa beri ka maalin inay kugu adkaato qofkii adiga aad dooran lahayd oo ii sheegayeen kaana saacidi lahaa waxyaabaha adiga markaasi aad doonaysid. haddaba haddii adiga aad doonaysid marka inaad noqotid siyaasi naajix ah, doonaya inuu ku soo biiro saaxadda siyaasadda, tallaabooyinkan aan soo sheegnay oo dhan waad u baahan tahay inaad ku dhaqaaqdid. gaar ahaan xilliga doorashooyinka waxaa imaanaya murashaxiin tiro badan oo u istaaga markaasi inay u rashaxan yihiin shay cayiman. haddii qofkan siyaasiga ah aadan aqoonin marka, ama gabadhaa siyaasiyadda ah aadan aqoonin, sidee kala xulan kartaa marka qofka munaasibka iyo qofka aan munaasibka ahaynin? qofka munaasib ku ah booska qofka yacni saxda ah, booska saxda ah seed u ogaanaysaa marka, ama gabadha saxda ah in la geeyo booska saxda ah sidee ku ogaanaysaa in la ogaado? waa inaad horta aqoon aad u leedahay hogaamiyayaasha siyaasadeed ee wadankaaga. aniga ma ka hadlayo yaa mucaarad ah, ma ka hadlayo yaa muxaafid ah. waxaan ka hadlaya waxay tahay waa adiga haddii aad doonaysid inaad noqoto siyaasi naajix ah. sidaas darteed marka qodobadan iyo tallaabooyinkan aan soo qaadnay oo dhan waxay kaa saacidayaan sidii aad ku noqon lahayd siyaasi naajix ah. qaybtan halkan ha inoo joogto. waa Maxamed Cali Juxa oo idinkaga tegaya. salaamullaahi calaykum.